laakiin maxamuud waxay dadka inay dhacday sheegayaan ku takarfeel awoodeed xagga maamul goboleedyada adiga Jubbaland baa gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada aad ka ahayd ma aaminsantahay inaad musuqmaasuq sameyseen horta musuqmaasuqu ninkee dila weeye xildhibaan Bishaar xildhibaan Bishaar dadkii wuxuu ka mid ahaa ku tartamayay maamulka Jubbaland wuxuu kugu eeday waliya dadka kale ma ah adiga oo Maxamuud Xasan Cali Obama inaad laaluush weydiisatay ma jirtaa arinta xildhibaanku wuxuu sheegay in aan Mareykan laga soo talxiiray taa uu sheegay adiguna waad ogtahay oo baasaboorkii waa kala asaan hadda ku safraya layma soo talxiirin waxay la mid waa la soo talxiiray ayaa leeyahay doorashadii Jubbaland ka dhacday Bashar Xasan oo waqmaasho ah oo kale ciidamada ammaanka inay soo farageliyeen oo gabadha dalaasin leeyahay si awood lagu soo saaray beesha oo caawinaysa telefishinada ka qeynlay mise musuqmaasuq kula muuqan arinta dhacday beesha aad gooni ii weydiisay cabashadoodu runtii ma ahan ay cabanayaan maalinkay doorashada dhacday ee waa u shaati gelis wixii dhacay ma aha waxay ka cabanayaan waxaad inkiraysaa in madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland in ninka la yiraahdo Maxamuud Sidaadan uu doorashada si toos u farageliyo dalaas la soo saaro yiri Cabdiqaadir waxaan ku xaqiijinayaa cid aadin shaqadaydi madaxweyne ku-xigeenka ma ahayna gudoomiye ku-xigeenku ah ninka shaqada lahaa i weydii horta waxaad samaysay waxaad hagaajisay laakiin nin aan shaqadiisa ahayn oo ku jirin yaa la aaliman laakiin muuqaal hadda diyaar ah inaad dadweynaha la wadaagno oo gabadhii dalas la tartamaysa ay leedahay in waa xaraan meesha wax ka socdo qeylinayso cadeen ah waa la hayaa arinta maxay kaga jawaabaysaa kaga jawaabayaa gaari laba nin kama qosliso kursiga kan laakiin doorashada kama qayb galin way ka baxday way ka qayb gashay way tagtay goobta doorashada tagtay waana laga helay hatta naftarkeeda isweydiin waxa mudan laba warqado iskala burinaya mar soo kala saartay oo in beeshaas nidaamka hadra in tixraaca doorashada Soomaaliya aysan wax kursi u oorin markii dambeena inay beeshaas xaq u leedahay soo saartay warqadaas hatta naftarkeeda dadka shaki badan buu galiyay wuxuu ku kala saabsanaa wuxuu kala socdeen waxay ahayd runtii midii koobaad qalad oo dhacday maya midna qalad ma ahayn labadaba sax bay leeyihiin hadda yar bayna sax la taana misanay